السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونحسن أخير تقيمها قاية له ملك استجوبتان يتسكستانو ليس نسا كسر دوادا مانتي وركاينيهن أنا وحاكميد Somaliland oo dagaal-garowgii ugu dambeeyay u muuqda inay suubinayso kuwaas oo hub cusuban tijaabinayso oo kolay sida u muuqato dad marka ayada dagaalka ugu dambeeyay marka dagaal kolay kama haraan imsana kama dambeys suubin doonaan sida u muuqato hub casriyaysan la soo degeen una joodo inay marka ayada ay tijaabinayaan sidii marka ayada ay u hawlgelin lahaayeen misna sidii oo la dagaalami lahaayeen istu u shaqeeyaba ciidankoodii kala tusayaan ayay muuqatay iyo Othel State oo ay ka laftooda u muuqato inay ku qanacsaneen hab diyaarinta misna doorashada sidii loo gelin lahaa kuwaas oo sheegeen inay marnaba diyaar u ahayn doorashada inay ka qayb galaan lagu la filayo inay kol dhowba ay qabsoomi doonto dawladii Muuse Bixi oo ayada lafteeda arrintiiba kow aan ka dhihin oo haddaba sidii marka ayada Othel State ba kow aan ka dhihin maadaama aan ognahay Somaliland inay Khartoum State ka baxday oo arrin tan oo kale in ay ku baxday isfahan darni iyo marka ayada dawladii iyo xukuumadii Muuse Bixi oo arrintii marka ayada ay ka tabanayeen dhag bilig loo siinin oo marka ayada laga kala aamusay taas oo kaliftay maanta inay Khartoum State ay ka go'day Somaliland ayay u egtahay burco lafteeda waan ognahay inay ayada lafteeda ay ku socoto oo dib badan iyo jabhada badan ay iska meeshii ka haajismeen oo dagaalkii iyo dawladda ay ka soo horjoodaan tii ayaa ayada lafteeda ka socota arrintaas oo la maleyn doono inay ayaga laftooda ay ka soo horjoogsan doonaan dawladdaas ku soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan Somaliland oo dagaalkii oo keenayso hub casriyaysan oo u eg hub walba aad qaali u ah misna aad u weyn meelo badanna gaari ay ku tijaabinayeen banaanka og kuwaas oo la filayo dagaalkooda hadda si u socotana inay kulluba qaadi doonaan diyaargarow ugu dambeeyay ay ka muuqatay ayaa oo la tus camal inay marka ayada ka muuqatay kuwaas oo la filayo dagaalkooda inuu kullu bilaaban doono maadaama dagaalkii ay ciidan badan iyo in muddaba ay hub badanba meesha keenayeen oo sidoo ballan u qaaday madaxweynaha inkastoo uu muddadan dhowba uu hadlin masna arrimaha iyo xaaladaha wadanka uu ka hadlin masna uu ka soo muuqan baraha bulshada ayaa la filayaa dagaalka inuu bilaaban doono kullu dhinaca kale hub badan iyo ciidamo badan Khartoum State ay ka laftooda meesha way ku soo aruurinayeen kuwaas oo irdhaq ka qabaan dagaalka in lagu soo bilaabi doono waqti kasta oo ay isku diyaarinayaan dagaalkaas si kasta iyo waqti kasta oo bilaawdan ay leeyihiin ay ka diyaar inay u yihiin marka ayadana iska difaaci doonaan wax kasta oo ku soo duulo labada dhinac oo ciidankii labada oo marka ayada aad u tubay yihiin oo marka ayadana hadii kulay inkastoo la iska candhaafin masana wax tilaabo soo qaaday isku dhinacooda la is jirin ayaa marka ayada cabsi badan ay ka jirtaa dagaalkaas inuu meesha ka qarxi doono waqti kastana laga filayaa inkastoo hadii labada dawladba ay hadii dawladda hadda haajismaysay iyo dawlad sii jirto oo ciidan badan meesha ku sii haysay ayaa wax isku barbar dhigi karana ma ahan laakiin Khartoum way dagaalantay gacanta ugu dambeysay guushana ay ka jirtay laakiin dawladii Muuse Bixi iyo Somaliland oo ay ka laftooda in badan ba meesha ku soo aruurinay ciidamo badan tababaro badan oo hadda ay ka soo bixiyeen ciidan badan meesha ay keeneen hubyaal badan oo casriyaysan ay meeshii ay ka soo dhawaayeen in muddo ayaa la filayaa dagaalkaas inay qaadi doonaan oo sidii sheegeen xuduudkooda ay soo ceshan doonaan Othel State oo dhalishay hab sidii loo wado masna sidii loo gelin doono masna arrimaha iyo xaaladaha sida u socoto doorashada madaxweyne iyo madaxtooyada ka socoto Somaliland inay ku dhaliileen inay diyaar u ahayn sidii sheegeen inay arrintaas ay ka soo horjoodaan diyaarna u ahayn doorashadaas inay la ka qayb galaan ayaa ay ka laftooda walaac weyn laga qabaa inkastoo dawladda arrinta ay ka gaabsanayso masna ay ka aamusan tahay taasoo keentay dadka dhexdiisii iyo reer Somaliland dhexdeeda ay keentay walaac badan iyo cabsi badan maadaama Khartoum State arrin noocaas oo kale ay ku baxday oo adeeg dawladda ay keentay iyo madaxda dawladda ay keentay awliyeed ay ku baxdo maantana ay dawlad gaar u taagan ay tahay Somaliland ay ka tirsaneen una ekeen inay ka soo noqon doonto ayaa ayada lafteeda looga cabsi qabaa inay ayagana saa u goostaan Othel State maadaama dawladda iyo xukuumadda marka ayada meesha ka talinaysay ay dhag bilig u siinin ciidankii iyo shacabkii iyo macal dawladda meesha ayada ahayd ka soo jooday Othel State ka soo jooday hadalkoodii arrimaha marka ayada ay tabanayaan dhag marka ayada ka maqlin dawladii ay iska dhagatirayaan ayaa la filayaa ay ka laftooda inay arrintaas ay sidii u muujin lahaayeen macnaha ay ka soo horjoodka ay ku qabaan misna xukuumadda Muuse Bixi iyo habkii ay doorashada u gelin lahayd ayna dhaliileen ayna leeyihiin doorashadaas ma soo galayso mana dhacayso mana ogolin inay dhacdo sidii marka ayada ay rabaan hadii u dhacayso sida ay ka laftooda wada tashi ay u baahan yihiin masana
kursigii marka ayada iyo hab dhaqankii iyo sidii doorashada loo gelin lahaa haddii laga qayb gelin ayaga laftooda inay kasoo horjoodaan ayna u suurtageli doonin ayay sheegeen. Waan ognahay dhinacan lafteeda dagaal badan iyo jabhado badan ay ka suubismeen dowladda oo la dhaliilayo la awligeed ayaa ay ka lafteeda saan ognahay oo taas oo jabhadihii inkastoo hadda ay qaarkood soo noqdeen oo ay leeyihiin duqey iyo arrimo badan ay ka wada hadleen misane heshiis hoose la gaaray taas oo weli hadda ay kasii jirto sheeko kale iyo marka ay su'aalo kale oo la isweydiinayo oo dadka qaarkiina ay ku diyaar u ahayn misana ay kasoo horjoodaan ayna ku qanacsaneen oo weli dadkii jabhadihii ahaayeen ay isku fahmin misana ay iska soo horjoodaan ba ayna dhahnay oona la ogoleen misana dowladdii sidee wax u wadane ay marka horeba ay u diideen misana ay u dhaliileen misana ay u fuuleen buurtaas dagaalkana inta artay ku jireen ayaa weli qabsoomin misana sidii marka inkastoo la ballan qaaday oo Muuse Biixi uu sheegay inuu arrintaas diyaar u yahay misana uu wax kastoo ay tabanayaan uu diyaar ula noqon doono ayaa ay ka laftooda su'aalo ka badan ka jiraan dhinaca kalena ay Awdal State dhibkaas ay lafteeda ka taagan oo ay diidan yihiin ayna sheegeen inay diyaar u ahayn haddii dowladda ay maqli waasana ay ka laftooda ay gacan geysan doonaan misana si kastoo loo maqli karane ay ka laftooda bilaabi doonaan oo aan filayno ay ka hato inay gooni u goosi ay ku dhawaaqan doonaan maadaama dowladdii ay xukumaysay ay ayagana hoos tagayaan dadkii meesha ka soo baxay mise xukuumadda meesha u hayay hadalkoodii la qadarinaynin oo laba dhageysanaynin ay ka laftooda u eg tahay. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatuh.